dowladda Soomaaliya waxay markaan si toos ah ula wareegtay balad xaawo oo gobolka Geda ka tirsan waa meeshii ugu adkayd ee ay dowladdu suuragal inay la wareegto haddaba shacabkii balad xaawo oo dowladda soo dhaweeyay barnaamij weyn oo ay dhigeen iyo maxaa ay ka yiraahdeen shacabka soo dhaweynta ciidamada shacabka gobolka Geda khaasatan degmada balad xaawo bulshada rayidka madaxda maamulka degmada oo soo horeeya gudoomiye ku-xigeenka degmada Dhuulbataan waxaan ku ilaalay gudoomiye dhalinyarada xogayaha maamulka lama kala maqna taageeradan ilaahay baan u kaalmaysanaynaa waxaan ka caranaynaa gumaysi waxaan ka caranaynaa dawlad la'aan waxaan ka caranaynaa cadow mudane madaxweyne ra'iisul wasaare balad xaawo waxay ku taallaa xuduud doolow baa la mid ah waana loo dhaaran hayaa waana loo indhacadayn hayaa waana la hajuuma hayaa waayahay maamadaas hadlaysa iyo dad kale oo barnaamijyaal oo badan ayaa dibadbax dhiga maanta balad xaawo ayayna leeyihiin dowladda hana soo gaarto noo imaada ciidankii ugu horreeyay balad xaawana way ku wajahan yihiin laakiin hadda maamulka dhan dowladda ayaa la wareegtay wararka ugu dambeeyay saaxiibayaal axmed madoobe ayaa u maqan hadiiba Gado jubbada hoose iyo deegaanadii isagu maamulayay 14 sano gacanta dowladda dib ugu noqonayaan wararkaas aan saaxiibayaal eegayna muuqaalka lagsar shargalay wixii aragtiya qaybta hoose ee commentiga axmed madoobe gacmihiisa markaan waxay noqonayaan kuwa faramaran oo ay ka baxayaan dhammaan muhiimadii waxyaabihii uu ahaa Garbaharey ayaa gacantiisa ka baxday Raskamboni ayaa gacantiisa ka baxday iyo guud ahaan badhaadhe si la mid ah Garbaharey Ceelwaq iyo balad xaawo ayaa gacantiisa ka baxday iminkana deegaano kale ayay ciidamada dowladda Soomaaliya ku wajahan yihiin si ay uga saaraan maamulka Axmed Madoobe ee gumaysiga ku haya bulshadan dhowr iyo 10 sano ku sugneed muuqaal ay soo duubeen dadka ku sugan magaalada iyo ama degmada balad xaawo ee gobolka Gado ayaa barnaamij weyn ku dhigeen waxaana ay sheegeen inaysan ogoleen Axmed Madoobe caqabad weyn uu ku yahay maamulka iyo guud ahaanba shacabka halkaas ku nool dadkan barnaamijyada dhigay waa dad shacab muddo badan ayay ku hoos noolaayeen maamulka Axmed Madoobe laakiin markan waxay leeyihiin waa noola hanjabayaa halis ayaan ku jirnaa xaaladeenu ma sahlana jawigu waa naga qaldan yahay Axmed Madoobe ayaan u hanjabay ciidamada balad xaawo ku sugan waa kuwa military Soomaaliya oo nisa ku jirto kuwa Jubbaland iyo Ethiopian marka sheekadu halkaas waxay u adag tahay in isbedel weyn uusan jirin laakiin saraakiisha ciidamada dowladda ee halkaas ku sugan nisa ayaa qaadaya talaabooyin dheeraad oo ay kaga hortagayaan talaabooyinka Axmed Madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamsa waxa ay si cad u sheegeen oo ay mowqifkooda u waafajiyeen in Axmed Madoobe uu sharci darro ku joogo Jubbaland muhiimna ay tahay in laga horwareejiyo dhammaan dadka deegaankana aysan rabin awoodna uu rabo inuu ku sii joogo marka loo eego barnaamijyadan ka dhacaya deegaanada Jubbaland ee looga soo horjeedo Axmed Madoobe waxa ay cadeynaysaa in awoodii Axmed ay dhulka gashay awood gooni uusan lahayn qorshe uusan haysan tactica uu kula dagaalamo dowladuna uusan haysan waana waxa ugu adag ee hadda wajahay Axmed Madoobe dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee kula jirto tani waa mid aad u adag waana qorshe ay ku doonayso dowladda federaalka Soomaaliya inay kaga hortagto Axmed Madoobe aanu ku laabano dadkii barnaamijyada dhigay hadallo kala duwan oo kooban ay jeediyeen iyaga oo ka hadlaya arrimaha la xiriira amniga iyo xasiloonida waxaana yiraahdeen shacabka gobolka Geda khaasatan degmada balad xaawo bulshada rayidka madaxda maamulka degmada oo soo horeeya gudoomiye ku-xigeenka degmada Dhuulbataan waxaan ku ilaalay gudoomiye dhalinyarada xogayaha maamulka lama kala maqna taageeradan ilaahay baan u kaalmaysanaynaa waxaan ka caranaynaa gumaysi waxaan ka caranaynaa dawlad la'aan waxaan ka caranaynaa cadow mudane madaxweyne ra'iisul wasaare balad xaawo waxay ku taallaa xuduud doolow baa la mid ah waana loo dhaaran hayaa waana loo indhacadayn hayaa waana la hajuuma hayaa faragelin xoog lahaa nugu socota faragelin xoog lahaa nugu socota uma dulqaadan karno ciidda annagaa iskale waryaa ciiddaa ii soo dar ciiddaas ii soo dar ii soo dar ciidda ii soo dar ciidda ii soo dar war ciidi siiya war ciidda ayaa iskale war ciidda ayaa iskale Soomaaliya gumaysi dooni mayno war ciidda annagaa iskale wallaahi oo bilaahi haddii faragelinta nala ka day waayo carruuraha iyo haweenka guryaha kuma jira hayaan bannaankay u soo baxahayaan meeshii aan ka shakinaan tuuriyaynaynaa waa gubaynaa ciidannada nala kuma gumaysan karo ciidannada nala kuma gumaysan karo mudana madaxweyne meeshaan emergency baa ka jira emergency waa maxaa weeye waa anta
waxaana la leeyahay dacwo waxaa noo qaban haya amxaaro dacwo amxaaro miyaa iskale dacwo amxaaro miyaa leh waxaan ka xumahay ragga geesiyaalka oo soomaalida oo naf ka dayay shisheeye oo gumaysi shisheeye ka dayay soomaali baa iskale soomaaliya soomaali baa leh waa haweenka soomaali hadalladoodii iyo hurdayalka toos waa heshiisaata dabadeede waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodii iyo hurdayalka toos waa heshiisaata dabadeede war axmed maxamed islaanow gadan waxba kaama oolin taleefonna waxba kama taro annagana axmed maxamed islaanow eedda macaane gadan waxba kaama oolin hub kaama oolin ciidankuuma joogin mashaariicad ka fulisay ma jirto qarankaanu raacnay waayahay waa bulshaweynta beledxa ku noolsha banaanbaxa dhigaya si toosa ayayna u sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo horjeedaan oo aysan taageersaneen taasina markan waxay caddaynaysaa axmed madoobe inuu ku daayay macsalaama yahay gobolka gadana gacantiisa ay ka baxayso garbahari aad dowladda gacanta ku haysa si la mid ah qaybo ka mid ah ceelwaaqna gacanta iyo dowladda ku hayso dhammaanteed ceelwaaq aan yaraade beled xaawo ciidanka nis ayaa jooga iyo sidoo kale ciidamo militariga soomaaliya ka tirsan inkastoo deegaanada qaar ay Itoobiya gacanta ku hayaan iyo ciidanka Jubbaland doolow iyo deegaano kalena dowladda Soomaaliya ayaa ku wajahan waxaana ay rabtaa in tallaabooyin dheeraad ay ka qaado tani waxay muujinaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markan banaanka taalo oo ay rabteen in la dagaalanto Itoobiya iyo awoodda ay sheeganayso oo sanadii la soo dhaafay ku gumaadaysay dadkeena Soomaaliyeed dowladdu laba qorshe ayay wadaa inay sugto ammaanka guud ee xuduudda Soomaaliya ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Itoobiya Kenya hadda ay la wareegeen oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ciidamo ka sigan waa ka tirsan kuwa haramcad iyo gorgor oo sida gaarka u tababaran ayaa jooga kuwa ka tirsan militariga way kaabayaan markan sheekadu waxay ka taagan tahay dhibaatada ugu weyn Itoobiya dhowr iyo 20 sano ciidanka Itoobiya waxay gacanta ku hayaan doolow beled xaaw qaybo ka mid ah gobolka Gado oo kale deegaanada xuduudda dhaca dhammaantood halkaasi waxaa ka taliya oo ka arrimiya maamulka Abiy Ahmed uu hogaamiyay ciidamadiisa waliba waxaa la sheegayaa in farmaajo uu seexay dhul inuu Itoobiya siiyay dhulkaasna ay Itoobiya qaadatay oo daawo meesha la yiraahdo ay ka mid tahay iyo deegaano kale taasi oo halis weyn ku ah dowladda federaalka Soomaaliya haddii ay isku dayeen ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya ciidanka Itoobiya waa ku daayeen Soomaaliya ay ka baxayaan laakiin caqabad weyn ayaa taagan oo ah in Axmed Madoobe markan ay garab siinayaan militariga Soomaaliyana waxay u diyaar garoobayaan dagaal inay galaan oo ay la dagaalamaan maamulka la yiraahdo Abiy Ahmed iyo sidoo kale ciidamadiisa militariga iyo Axmed Madoobe oo iskaashanaya taasi oo fursad muhiim u noqon karta dowladda federaalka Soomaaliya talaabooyinkii ugu dambeeyay saacadii la soo dhaafay ee gobolka Gado shacabku waxay muujiyeen inay rabaan ciidankii dowladda inay la shaqeeyaan shacabkii halkaas ay tagaan dowladuna ay u tagto isla markaana ay si wadajir u shaqeeyaan oo ay garab siiyaan taasi waxa ay durbaba abuuraysaa in la isku qanco la iskuna taageero go'aan walba iyo hadaf loo dhan yahay loogana hortaga si wadajir Itoobiya iyo xabashida ku soo duushay Soomaaliya ee rabta inay la wareegto dhulkii Soomaaliyeed ee uduga ahaa dhiigga badan loo daadiyay taasina su'aal badan ayaa la iska weydiinaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya hadda isku dayayso inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo la xiriira sugidda ammaanka guud ahaan markii loo eego dalkeena Soomaaliya iyo xuduudaha uu la wadaago dalalka deriska la ah Soomaaliya guddaan saxaab halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono waa bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo